waxaan intaa idin raacinayaan idin warramayaa war yar oo qarinaya intaan weligay noolaa waxa jirtay 93 Ismaaciil bin Badaraad wuxuu maray salaxday iyo xuduudka oo dhan 93 baan aniga Ismaaciil bin waxaan isugu nimid magaalada Jabuuti la yiraahdo isaga oo laba inaan oo reer ceeri gaabi la socda Ismaaciil wuxuu yiri dagaal sokeeye waa laga maarmaan waa horaantii 93 waxaan Ismaaciilow in adeer labada inaan la hadli maayo laakiin adiga yaan kula hadlayaa hadalkaygu waxa weeyaan kontonka inaan ee airportka jooga ee hambadii wadanka xoreyntiisa ka soo hadhaya halayni kontonka halayni wuxuu yiri dhageyso haddii aynu ka noqono Somaliland 12 milyan baa Sacuudigu bixinaya 12 milyan bay bixinayaan markaynu ku dhawaaqno kontonkaad sheegaysaba ogaadeenku wuu leyn jiray dantaada ka raaco kelmadaasi siday ii dhibtay weligay iyo allahay imay dhibin waxa kale mas'aasaad goosatay haa haddii ogaadeenku leyn jiray ogaadeenka mabda kale isku hayeen imaka kanaad gelinaysa waa khalad ka daa ma sidaasaan ku leedahay ogaadeenka wuu leyn jiray dantaada ka raaco horta halkaas aan ku kala dhaqaaqan hadalaan markii isku celinay hadaladii halkan ka sheegi maayo isagii markii dambe aniga dilkayga wuu ka shaqeeyay markii dambe maryaal walba noqday laakiin waxaan idin leeyahay Ismaaciil Salaxley wixii uu kaga hadlay ee xuduudka uu ka yiri ee uu cid ka sheegayay xumaanta ahaa ayaa hadalka iga keentay sidaas taa ogaanaysaan inamada daba socdow ee yaryarow Ismaaciil inuu yiri ogaadeenkaba wuu leyn jiray maxaa aad ka galayd ku falaysaa nin walba oo dhalin shaarkan waxa torshay Maxamed Ibrahim Cigaal wuxuu arkay inay habboon tahay siyaasiyan buu u fikiray beesha weyn inaan xisbi kaliya ka soo bixin dadweynaha beelweynta Garxajisna waxa si wanaagsan uga wada dhacsan sidaa waxa loo yeelay in iyaga laga fogeeyo oo khudad la dhigay oo loo dhigay inaanu hadii Garxajisku meesha iman hogaamiyashoodu ay shaxdaas ahayd siyaasadu dhigay markii ugu horeysay Allahu naxariiso madaxweynaha hore Somaliland Marxuun Cigaal bal arintaas sidoo aragta horta buuba waxba ka qaldan taariikhdana in uu iskuguma xidhna Allahu naxariiste Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal baa noolaa Cigaal ma soo gaadhin iyadoo 3 xisbi qaran ay dalkan u soo baxeen hay'adda militariga ee Somaliland ayaa hadii muxuu ahaa sidoo u dhisan yahay beesha Garxajis khaasatan iyo beelo kaleba fara badan ayaa u arka in ay hadii hay'addii militariga ay u gacan gashay sheeganta magaca xisbiga waan ka hadlay ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan hal magac bay leeyihiin oo ah ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland hadalka ninka ka soo yeeray waxaan u aragnaa hadal aan munaasib ahayn hadal run ahaantii aanu ka fiirsanin ciidamada qaranka iyo shacbiga arinta dhagxumada maqlayna waanu ka tacsiyadaynaynaa xisbi ahaan isagana waxaan u rajaynaynaa inuu ka waantoobo waxyaalaadkaasi waa nin oday ah